wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose maamulka Hirshabelle iyo hay'adaha bahwadaagta kula ah dhismaha golaha deegaanka maamulka Hirshabelle ayaa maanta kulan lagu wacyigelinayo isla markaana lagu fahansiinayo muhiimadda golaha deegaanka uu leeyahay. waxay u qabteen bulsho gaarayso ilaa 100 ruux oo laga kala keenay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Buulaburde. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay xubno matalaya ururada dhalinyarada iyo waliba haweenka waxaana ay si weyn u soo dhaweeyeen tallaabada wacyigelinta ee dhismaha golaha deegaanka. haweenka degmada Buulaburde gudoomiye ku xigeen ah maanta waxay ii tahay farxad weyn oo noo wadaan qolada deegaanka ay noo wado maxay aheeday wasaaradda arrimaha gudaha waan ku faraxsanahay garab waan u taaganahay waan la shaqaynayna. qaar kamid ah odayaasha dhaqanka degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan ayaa ku tilmaamay arrin aad u wanaagsan in la sameeyo golaha deegaanka iyagoona ugu baaqay howlwadeenada iyo wasaaradda arrimaha gudaha in la dedejiyo dhismaha maamulka golaha deegaanka. ismadii golaha deegaan ee hore ah warbixinteeda aan noola siiyay in aan maanta sugu nimaadno halkan sharaf weyn bay noo tahay. waxaan soo dhaweynaynaa walaalahayna noo yimid noo furay in ma aragtay meeshii laga gal lahaa ama dariiqaan mar lahayn konsulka insha allahu tacaala waxay yidhahdeen waxna waa noo dambe waxna waa idin sheegaynaa. aniga waxaan raalli ka ahay ama aan ka wadanahay in aan maanta aad ugu faraxsannahay golo deegaan ee degmada Buulaburde laga soobinayo. waxaan isugu nimid waxaan hore ugu ballansanayn wax cusub ma ahan inaan ka gudubno isjiijiidka iyo qabyaaladda dawladnimo u gudubno dad la soo doortay inay hogaamiyaan sidaasoon hore isugu ballansanayn oo hore afti u dhiibanay ayaan maanta isugu nimid. mar haddii ummaddu isku timaado danteeday ka hadashaa danaheeday ka hadashaa waxaan leenahay wixii qaladana waa la bixi doonaa wixii saxana waa la isku sheegi doonaa ayadaa saxtaana la wada qaadan doonaa. ninkii dan gaara leh oon dan ummadeed lahayn asagaa sabri doono sabarkaasaa deeqi doono laakiin waa wada tashi aan ninna lagu xaqirayn ninna loogu danaynayn. mas-uuliyiinta maamulka degmada Buulaburde ugu horeeya kusimaha gudoomiyaha degmada Liibaan Burisow ayaa iyaga dhinacooda ka hadlay waxaana shacabka ay kula dardaarmeen inay ka qayb qaataan dhismaha golaha deegaanka. deegaamaynta ama konsulka ama isdoonashada arrintii aan isugu nimid horeyna waa u ballan qaadnay oo waa sheegnay waa la daahfuray oo beelbeel iyo guud ahaan iyo gaar ahaan iyo waxgarad intaba hore aan u ballan qaadnay. haddaana kulankii bilowga ahay oo loogu gudbaayay shaqada gudagalkeeda ayaan maanta u fadhinaa. shaqadaas waa soo dhawaynaynaa aadaan u xiise gelinaynaa waan tixgelinaynaa mudnaan gaarhay noo leedahay. waxaan soo dhawaynaynaa geedi socodka cusub si aan ugu soconno horay aan uga baxno qabyaaladda aan u baxno qarannimo. waxaan leenahay reer Buulaburde meel kasta oo aad joogtaan isqabsada gacmaha waxaad tihiin reer Buulaburde waxaad tihiin reer Hiiraan waxaad tihiin reer isteedka Hirshabelle waxaad tihiin Soomaaliya. waxay imaanaysaa intaas markay gacmaha isqabto midnimada Soomaaliya inay hore u dhaqaaqdo ay gaarto dawladnimo dhaba dalkaynuna uu ku soo laabto sidii uu ahaa jiray. barnaamijkan barnaamij taxano ah oo noo soo socday maalmahan reer madaxweyne wasiirka arrimaha gudaha ayuu ahaa horumarka ayaa ku sii soconaynaa anagana hadduu ilaahay yiraah oo targetkiisayna yahay golo deegaameen Buulaburde insha Allah barnaamijkaas ku sii soconaynaa waana wadaynaa hadduu alla qadara barnaamijka seminaarka uu furan yahay hadduu alla yiraahdo. dhawaan ayaa lagu wadaa in degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan laga hirgeliyo dhismaha golaha deegaanka waana degmadii labaad oo ka tirsan maamulka Hirshabelle ee laga dhiso golo deegaan. maxamed cismaan makaraan Universal TV Beledweyne.